3 sano ayay Shukri oo dhowr iyo 20 jir ah kursi ku fadhiday waxaana dhaawacan oo dhanka lugaha ah uu soo gaaray sanadkii 2015 kadib markii uu dhowr meel ka galiyay mindinin isku dayay in uu kufsado. Shukri waa ay weyday cadaalad iyo in garab lagu siiyo daryeelka caafimaadkeeda, haddana saasoo ay tahay weli kama quusan naxariista Alle iyo in ay hiil ka hesho ummadda Soomaaliyeed. wuxuu geystay real bila dhacay 7 xabo toori bay ugu dhuftay dabeetana lugihii baan ka fadhiistay oo curiyaan baa noqday saas baa maxaa lagu uga fadhiistay dabeetana waxay gaadhay 2015 3 sano baad saa fadhiyay gaariyaan ku fadhiyay maxaan sheegay nin baa magaalada Boosodili ugu geystay maxaan sheegay ninkii markuu dili geystayna xaaladii odayaal iyo xaska galay maxaan sheegay dad baa loo dhiibay arintii maxaan sheegay in awood aan dhakhtarku aadana ma haysano dad heer baadiya heerkeeguna way xooliba ka dhamaaday waxbana ma haysano hooyada waa yeelay la joogto ee haysa tar Soomaaliya ay Hargeysa iyo Gaalkacyo meelahaas marmaray macal magaalada Muqdisho ma tagin marka dhibaatadu saas ahayd ummadda Soomaaliya waxaan ku codsanay inay soo caawiso iyo dadka Islaamka waxaan dareemaa wax qof dhibaato uu dareemo kasta oo qof bilaana curiyaan oo lugaha fadhiyo dhalinyaro aan waxba qabsan awlaad dhalino waxba dhalino maxaan sheegay dad Islaamka waxaan ka codsanay soo caawiyaan in awoodna ma haysto taala ma haysto ooyada waa yeelay la joogta marka waxaan sheegay dhakhtarna waa u baahanahay oo lugaha waxa lagu yiri wax ka qabashay leeyahay hada meel dhakhtar tagtiin in caafimaad baa laga yaabo wax laga qabto neerfiyaal iyo wax Shukri oo agoona ayaa hadda waxa gacanta ku haya hooyadeed Sahro Cumar oo waayeela waxana ay dulsaar ku yihiin qoys qaraabadooda ah oo Garowe degan. Gabadhaas oo Boosaaso lagu dilay oo dil loogu geystay caafimaad u baahan 20 jirka halka fadhiya awood uma hayo itaal uma hayo waa agoon maxay haytay walaalaheed oo yar yara ninkaas u weyn yahay oo asagara ay xoolihii ka dhamaadeen oo aan awood u hayn oo maxay haytay aan saaka waxaanu ku dhakhtarinahay walaalaha iyaga Soomaaliyeed waxaanu ka codsanaynaa dawladda farmaajo maxay tahay dawladda Cabdiweli inta wax garadka odayaasha codkarka wixii waxaysta waxaanu doonaynaa gabadha inay na soo caawiyaan. adigoo dhalinyaro ah una baahan mustaqbal haddii ay ku hesho qadartan oo ah mid Rabbi bal qiyaas xanuunka aad dareemi lahayd. Maxamuud Soofaysane, Somali News, Garowe.